waxaan shacabka Soomaaliyeed u xaqiijinaynaa marka ugu horeysa inaan hogaamiyaashan iyo shacabkii maanta mudaharaadayay kalitaliska xilkiisa sii dhacay xilligiisa dhamaaday ina farmaajo oo maleeshiyaadkiisa ku soo xabadeeyeen ay bad qabaan dadkii mudaharaadayay iyo hogaamiyaashii siyaasadda intaba waxaa jira dhowr qof oo dhaawaca iyo kuwo kale oo dhintay wax gaareen oo weli aan xaqiijintooda la xaqiijino laakiin aan raadi doono hadduu ilaah yiraahdo waad daawanayseen si live ah oo dunida dhanaa ka arkayseen in dad mudaharaadaya oo siyaasiyiin ah oo shacab isugu jira la soo weeraray maleeshiyaad ka amar qaata sidaan sheegay ninka kalitaliska xilligiisa dhammaaday ay soo weerareen ilaahay naga badbaadiyey waxaan u sheegaynaa shacabka Soomaaliyeed ina farmaajo awalna xilkiisii waa dhammaaday madaxweynuhu maan aqoonsaneen waa sheegnay maanta waa gacan ku dhiigle waa dagaal ooge oo waxay dhihi jireen mujri xarb waxaan maxkamad adduun ahayn iyo cadaalad dalka gudihiisa oon kula macaamalayna maba jirtaba saaki laga bilaabo waa dambiile mudan in marinkiisa la marsiiyo waxaa kaloo intaa dheer in maleeshiyaadkiisa madaafiicdii ay noo wadeen iyo xabadihii ay nagu ridaayeen ee garoonka diyaaradaha noo dhaafiyeen dhinaciisa oo hadda ay civil aviationkii ay gubanayso naloo sheegay weli waxay u ooman yihiin dagaalka weli waxay u ooman yihiin dhiig inay daadiyaan weli waxay u ooman yihiin dad rayada inay dilaan oo xuquuqdooda u diidaan laakiin waxaan u xaqiijinaynaa asaga iyo maleeshiyaadka amar qaadataba inay maalmo yar u harsan yihiin markii la marinkooda la marsii lahaa way fursad ayay haystaa wiilasha maleeshiyaadka ina soo xabadeeyey ee joogay jagboontiyada aan marayna halhalaan u naqaanaa fursaday haystaan ay ku tooba keenaan oo ay kalitaliska amarkiisa ku diidaan oo ay dadkooda soo raacaan oo dastuurkii dimuqraadiyadda u heliyaan weli fursaday haystaan laakiin ninkaa fursadda haysanin waa kaligitalis farmaajo shacabka Soomaaliyeed iyo reer Muqdisho dad la casii kara maaha dad la handadi kara maaha horaa loo cabsii waayey Ethiopiana cabsii waayey taangiyaal wata argagixisaa cabsii weysay dadka qarax ku laysa wuu riyoonayaa ina farmaajo hadduu isleeyahay dadkaana cabsi gelinaysaa oo kaa baqaaya mudaharaadka wuu soconayaa ilaa ina farmaajo uu ka baxo xilka uu ka dego hal waxaa maanta u fadhiyaa meesha inaa maqlo ninka sheeganaya ra'iisul wasaaraha ee xafiiska ku jira ina rooble soo ma ahayn warkiisaan rabaa inaan maqlo waxaan rabaa madaxweynaha dowlad goboleedka galmudug axmed qoorqoor warkiisa inaan maqlaan rabaa waxaan rabaa madaxweynaha dowlad goboleedka hirshabeelle cali guudlaawe hadalkiisa inaan maqlaan rabaa waxaan rabaa guddoomiyaha gobolka banaadir cumar filish inaan warkiisa maqlaan rabaa hadday dadkan matalayaan hadday deegaankan matalayaan maantay kala caddaanaysaa waxay soo saaraan iyo waxay yidhaahdaan shacabka Soomaaliyeed meel kasta ay joogaan waxaan u ballan qaadaynaa guusha inay intaas jirto qaaba qowsayni oo adnahay jirtaa dictatorkana ayaamiis ay tirsan yihiin inta godobta la gelaysa ha is qorto inta fursadda ay u furan tahay ha is sheegto maanta inta taariikhda diiwaanka ay gelinayso oo dadka xoreeyeen ayagan ha is sheegaan waa maasantiin